السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام دمان reer dabiib reer dadaal selayahay mala fiican yahay mala nabad qabaa ilaahay idankiisa waa idiin rajaynaa meel kastoo adduunka ka joogtaan ii soo dhawaada noo soo dhawaada oo khayr iyo farxad la soo dhawaada dabiib iyo dadaal ku soo dhawaada welcome waa cashir bixintii qolalka hoose team blue diamond welcome aa idin leeyahay haye waa qaybtii hoose iyo dhiirigelinteeda sii daa su-aalahani ciidaanay ka badatay caafimaad allah keena dhiig iyo dhimirka nabad ku raaco welcome haye maasha allah weekendka waad ogtiin hawsha waa badan tahay allaha barakeeyo dhageysi wanaagsan dheefta soo galayso waa dheefta qusayso arrinka laga cabanayo caafimaad allah keena haye faallada idiin qaaskaa dhageysta إن شاء الله خير welcome ستوصل وحنو قلنا برنامج كينا عشر بحنته سؤالها سلو فهموا إلا ذا لا تعالى يو عافي ماذا الله كان ديكي إيدي مركا نبات كراحو هاي قبلها مركا يدهان قاتير توحي دهن سوري وحبلغو مقابن كرو ليستيقى إلا ذا فيريا إلهي با وحقابن كريه هرمونكو مركو إسبدلو إنا أفضل ستالغا ربا waayo qofka su'aasha qaba waa adiga su'aalaha qaar waad ogtiin ilaa iyo waxa la aaday dhaqtar baaris ka bacdi waxbaa soo baxay arrinka soo baxayna waa arrin u baahan meel u baahan hadal waxba kama taro hadalka ugu dhow oo muhiimka u ah ama loo baahan yahay waa duco hadalka xigo waa hubsiino fadhi ma yaala team blue diamond soo dhawaada welcome waxaan ka sheekeynayaa symptomyada wixii laga qaban lahayne allaha sahlee waa tanaa wadada loo maro iyo daryeelkeeda marka barnaamijka kusoo dhawaada welcome haye fadlan ogaada symptomka la dareemo dadka isku si uma qabto waa laga yaabaa dhowr arrin oo kamid ah inay gabar u aqoonsato meesha hal iyo laba ay gabar ka aqoonsato maybe qof ciladu ay hayso inuuna waxba aqoonsanaynin waayo waxaa jira dadka qaar maadaama ay haystaan dhiigga caadada weli inayna dareemaynin xataa isbedelada jirka dadku inta badan waxay xoogaa fiigsan yihiin ay wax fahfahmaan ay xal raadiyaan marka dhiiggi la waayo ama gabdhaha ay dhiigga waayaan okay markaasaa kala carar yimaadaa laakiin inta dhiigga caadada la arkaayo waxaa laga yaabaa cilado badan oo jiro inaan xataa la fahmi karin maxaa ka mid ah marka horta koow da'da ku xisaabtama 25 sano wixii ka dambeeyo baa laga yaabaa qofka dumara ama gabadhu inay isweydiiso maxaa keeni karo afqaraar timo daato indhahoo qalalo ama korkoo qalalo qalayl waxaan ka wadaa dry ama qalayl wadna garaac mindhicir maroojis ama cramping lafa xanuun qandho maqribkii waxyaabo badanaa lala kulmaa hormoonka wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xanuunaadka ugu badan oo goosgooska ah mar dibriyo waay mar naasa darar waay mar emotional problem like saadaa tahay ama waad qayliyaysaa mar waa dhididaysaa mar waa baahanaysaa mar dharagaa dareemi baahi kuma hayso caadadaa soo laba noqoto mar kuguma dhacdo mar cadadeedaa badan mar khafiif waa goosgoos waa haddaa u fiirsatid mushkulad fadhida maaha ka alla magan laakiin mushkulad fadhida maaha waa mushkulad goosgoos ah okay marka caafimaadka uu saxan yahay ama hormoonku saxan yahay lama dareemo laakiin inta badan waxaa la dareemaa markay ciladu jirto soo ciladahaas waxay ka bilowmaan 25 sano waa laga yaabaa teenage problems inuu iska jiro oo hormoonka ka qaldan yahay aniga kamid ahay dadka teenage-ka hormoonka ka qaldamay laakiin ma badno inta badan 30 sano wixii ka dambeeyay ayay dadku waxay dhahaan caadadeedu way saxsanaan jirtay caafimaadkaygu way saxsanaan jiray howlahan hadda ila soo gudboonaadeen ama haddaan la kulmay iyo wax lamidaba okay waxna daa keento waxna dan adduunyaa keento okay arrimaha qaarkood oo yimaado looma fiirsado waxaa ka mid ah gabadha xaaska oo arrimaha qoyska daciif ay ka tahay ila garhowsha
yaa qolka hurdada ay daciif ka tahay sidoo kalena dad waxaa jiro daal dareemo looma fiirsado because maanta oo dhan markaa shaqaynaysay ama shaqo banaanka aaday ama guriga ka shaqaynaysay waa lala kulmaa so waa daalanahay because maanta oo dhan aan shaqaynahay daalkan kaloo siyaadada ah oo daba kici karaynin ma xisaabi kartid arrinka kale uur qaadisto adkaato because of ugxantiya low equality waa laga yaabaa inaan loo fiirsan inta caadada kor laga arkaayo halkaasna waxaa ka dhaco waqti dheer oo sanadaha oo dhumo oo saahum ah oo waqtiga lumo adoon isdhehaynin waxbaaba qaldan taas baa loo yiri hubsiina halaala siistaa soo dhawaada meesha meel dhiirigelin waayo dhanka kalaan ka imaanay iyo channelkeena Mama Wano qaybta cashar bixintaan soo gaarnay soo dhawaada welcome haye ilaa ciladaha qaar diagnose lagu sameeyo dhaqaatiirta ma ogaan karaan laakiin FSH-ka waa kacsan yahay wuu dhaafay levelkii normalka ah haddii xataa borderline-ka aad tahay ma ku dhahaan wax ka bedel noloshaada hormoonkaaga wuu sii kacooyaa FSH-kaaga kacooy kuma dhahaan ilaa ay ogaadaan inaad dhaaftay qadkii markaasay kuu sheegaan andeen soo noqoshada daryeel badan aa loo baahan yahay daryeelkiina intaa ka bilaabee waa ila gara sheekada soo markay gabdhaha leeyihin waa isbaaray dhakhtarka all normal wuu idhahay normalaa tahaydaas borderline-kia tahay taas waa loo dhahaa hays dhiganin ani maxaa idi dhahaa hays dhiganin haddaa isdhigatid markay tuulay tahay aa soo noqotid beh waqti ma haynaa taas waa idinkugu diyaariyaa waxba waxa kale kasii nafaqo badan yihiin ilaahay idankiisa howlo isdardaray si durba loo gaaro nafaqooyinkaa idin diyaarinayo u fiirsada wax badan idinka caawisaa laakiin baro nafaqada baro kabacdi waa u xilanaya biidnillaah okay arrinka kale waxay tahay maxaa keenay inaan caadada gabo anoon dhalma dhigin daryeel la'aan waxba waxa kale ka nafaqo badan yihiin hadduu jirkaaga galo ilaahay idankiisa maskaxiina aad dejisan tahay qalbi ahaana faraxsan tahay yaa وصار نقولنا ديجي حد مسكين واي لكن هذا نحنين وضد مهليسد وضد الله كل سهل سود بهذا أوكي إلا ذا فرحة بدن هرمون كلا جل كل ما وقاركود قرحت إيه هنانك الدعوين محاتلا هرتو مرنا باللبات نجر من نقكرتد أذو أفرتن كده حفي سو هدات هذا كورن دلالك أن دوري تبانك سنو labaatanka sano aan haystay aan u noqdo no waa weynaatay laakiin da'daada ku dhalaali kartaa ku qurux badnaan kartaa ilaahay idankiisana kalsooni ah ku heli kartaa okay hormoonka markuu qaldamo caadaduna ay muddo joogsato rajada ka waran inay caadada dib u soo noqoto isku saxdo ilaahay waxba kuma aha maxaa la yiri dadaala waa gaaraa laakiin waqti sii naftaada ogsoonowna inay da' ku hayso 30 40 iyo 50 dadaal zaa'ida laga rabaa because halka howlgabaayo waa overyaha hadduu howlgabo xagee ugxaan aad uur ku qaada ka heli taas waa nafaqada ugxaanta korinayso kuu anfacaysa inaad daayadkaada ka mid dhigto ogow reer dabiibo adika u xil saaran mar hadduu kuu soo galo inboxkaaga amount adiga ku taala insha Allah khayr caafimaad Allah idinku daro soo dhawaada welcome okay dhakhtarka wuxuu igu dhahay lafahaaga waa fragile lafaha waa daciif because caadadii baa gabtay maxaa tala caadada dhowr sano ay maqan tahay waxaan jeclaan lahaa inaan caafimaad buuxa helo okay bariis iyo baasto sabaayad iyo wixii lamid ah qofkii cuno nafaqada la'aanta ma ka soo kaban karo marka dietka markaa qurxido aniga ma dhihin Soomaaliya tiri qof walba wuxuu cuno ciidamiya marka please daacad u noqo daryeelka dabiibka ansi 6 bilood ilaa 1 sano ilaa 2 sano hadda ma aha 2 sano programka ku jira waa ku jiri kartaa laakiin sidee wax u soo galaan ma u gadaa ma u cuntaa ma u dhameysaa haddana ma sii wadaa continuously laasin ma samaysay mase waa dhadhami iyo waa arkay iyo waa akhriyay iyo waa rabay inaan gato taas ma lagu helo caafimaad hadda markuu kuu soo galo iyo raali haadaya walaa waa ka naxaa kelmadda saas markaa idin dhahayo horaa waxaa loo yiri habar fadhida lagdin la sahlan
waayo markaa idin dhaho itus ma dalabtay dadka programka ku jira dad dhife screenshot ka soo qaadi karo dhihi kara waa order garay hadda ka bacdi diet-kaygu geli doona adeegan waan akhrista waan u bogay waa fahmay waa doontay qaarkiin shib mudkaa gelaysin waa seexanaysiin dhaxjiifka dabiibka daryeel ma lagu helo yes waa ka dhowdahay dadka youtube-ka iga dhagaysto laakiin nafaqadii ku hor imaatay ee caafimaadkaaga ilaahay ha kuugu dara dawee u fiicneed isha haddaa ka fiirido taas no nice aragtay maxay indhaha kaga qaadi waay waa inaad doontaa laakiin adinkana arka baahida la qabo taasoo dhakhtarka u dhahaa waxba laguma qaban karo ta'miis adigana ma qabsan kartid anigana ma kuu qaban kari yaa kugu siinaa for free yaa kugu siinaa free linkiga markaa ku dhufatid Amazonka aad tagtid akaunkaaga maryo ku dhahaa lacagta intuu jooga shayga haddaad markaas lacagta qoorin adeegi aragtida maad ku qaada marka waaya nafaqadii waa maya dhakhtarka marka wuxuu dhahaaba dadkan afrikaanka ayay islurin waxba looma qaban kare khatarteeday leedahay waxa lagaa raba haddaa samaysid waa laga yaabaa isbedelka in hormoonkaaga laga arko hadda ka hore waxaa soo gashay nafaqo fiican hormoonka daciifka ah war gatooy war way dhammaataayey war waa la kala dafaayey war dhowr bokiska gatooy dheg jalaq badiley ma siini markay dhammaataa layidhi haddaan rabe inaan gatee maba yaalee maxaa sameeye ma ogi meesha maanaa leh habar yar markaan sas u soo dira diyaaray ahayd gadataye ku dhufsatay allah horyare hadda kadib markii la keenay isoo sheeg adeegyada qaarkood sanadaa la sugayaa because kambanigaba ma soo samayn karaba waayo sometimes 6 sana la sugaa kambaniga 6 sana sugaa intuu adeegaas ready ka noqdo markaan idin siinayo faallada idin qaaska warka dhageysta haddaa research samaysid waa ka daba tegi kartaa haddaad wax dabiici organic oo sida loogu talagalay loo soo diyaariyay ay tahay maaha qabee qoorta gooy iyo yaa iska low quality wax ama high quality waxa ay qaarkood dhowr sano la sugaa fermented wax la yiraahdo lagu sameeyaa waa la soo qamiiriyaa waqti dheer ay qaadanaysaa oo ready ku noqdo think about it kabacdi laga gadaa markuu yimaado oo diyaar noqdo price loo yeelo lacagtooda inay cadeystaan ay rabaan marmara xataa la soo jibiyaa dadku saas isku kala dhigaan shidanba dadku waxay rabaan haddana inay bilaabaan shaqo kale ilaa ayaga ganacsigooda tahay sax ayagoo saasa oo waqti dheer sugayo baa beeruhu dab qabsan karaa cimilada isbedeli karto wixii la sugayo in waqti lagu koriyo baa meeshooda ku qurmaa haddii la doono adigana muhiimay kuu tahay markaa idii soo raaciya faallo arrimaha u fiican fertilityga fadlan gado shilinkaaga gooskaaga isbar naftaada u qoor durbaba doono caafimaad allah kuugu daro aamiin ubixi la waraabiya nuuro marka daryeelka anigu ma gado laakiin ani maadaama aan idinla shaqeeyo sanado badanna aan idinla shaqeynay waa iga maqasheena u malaynaa mar ka badan waxyaabahan waa la waaya weli waxaa idiin sheegaa Amazonka durba laga waayo Amazon UK ugu badan meesha adeega laga waayo Amazon Canada waa igu cusub yahay wax laga waayay waxaan laga weynin ma kala aqaani amazon.com adduunka dhan uu adeegaa badi waa laga helaa because wuu ka isla ka hanqaraarac lagu mehintiyo wax badanaa laga dhex helaa Amazon UK waa hal wadan waa okay waa local waa laga weyn karaa marka gabdhaha oo UK ka soo gala programka fadlan wixii aan idin dhaho waa muhiim waana la waayaa gata hadda waa diyaar insha Allah khayr wax isku riix waxa u sii muhiimka ah ogxaantaada gado ama cararayaasha xajigaaga insha Allah soo dhawaada welcome okay symptom badan ayaa lagala kulmaa hormoonka markuu lumiyo balansiga ama sixida markuu lumiyo symptomkaas qaarkood dhakhtar lama hortagi karo because waa age related 40 sano markaa gaartid
ilaahay nabad ha nagu gaarsiiyo intaan weli gaarin allah nabad ku gaarsiiyo isbedelaa jirka ku imaado isbedeladaas waxaa ka mid ah xoogaa yar ka madluun haddaa muhiim ay kuu tahay taran walwal waa sax waa laga walwalaa waxaa kaloo walwalo gabdhaha dilan la kulmay haddana uur qaaday waxay la walwalayaanna ilaahay baa og laakiin adigoon isnafaqayn uur kale haddaa qaado waa baqane markaa dhasho oo ilaahay ilmo caafimaad la ku siiyo kabacdi waa qalbigaa kuu degaa waa iska iloobaya walwalkii uur qaadis la-aantana waa saas gabdhaha da-dooda 35 45 ee tahay way baqanayaan waxay isleeyihiin heblaayo armay kugu dhagtay saana maa ku galbatay laakiin minidkay positive pregnancy arkaan systemka dhinac isbedelayo meel baahneeda qaboobaydo because waxay isdhaysa way kaa dhamaatay markaa heshay waa farxee sax dhiig sanad labo dadkaanan arag way baqaan waa gabdhaha baqdo oo fertilitygooda ka baqdo dhiiggii marka intaasoo sano maqnaa markuu soo noqdo baqidii way iloobaan waxaana daciifeed gabdhihii lagu dhahay oo weliba levelkooda loo sheegay oo zaa'iday daciif u tahay waxba mataraysa la dhahay adigoo kale egg donation maahan ilmo kuma dhali kartid ukuntaada la dhahay markay nafaqo fiican qaataan ilaahay baryaan qalbi degaan isla tacaalaan ugxaantooda u koraan caadadooda u saxanto dhaladooda meeshii laga rabay u noqoto hadduu dhakhtarka ku dhaho waaw ugxaantaada meesheedii kusoo noqotay ama way kuu kortay maxaa samaysay farxad ilaa shalay afkii lagugu bursadaa maantana lagugu dhahay waad nabad qabtaa sax waa farxe marka farxadda intaadan helin I know waa la walwala anigaba waa arkay waa soo arkay wax walba markaa heshaad aad farxaysaa laakiin wadada loo maro ducada kow kabacdina ilaahay idankiisa insha allah dabiibka labo dabiibkaasna waa in daacad loo noqdo oo weliba continuously la wado si fiican ha loo dhageysto okay symptomkeena marka u soo noqonaynaa okay marka ha iloobinina waa laga walwalaa markay wax gaasir noqdaan waana laga kurba baxaa ilaahay waa kurba fayde marka muraadkaaga heshid taas waa dadka hore u dhihi jireen ilaahay idankiisa insha allah sadaqa igu waajibe hadaa muraadkayga helo marka aniga kuma dhihi kari qasab sadaqa bixi laakiin adi qalbi qashuuco oo sadaqa ballan qaada noqo amaba bixiyo hadaa heli karto waxba ballan qaadan bixi صدقة ولا بح إلهينا ومرادية كل سهلو صدقة ولا بح إلهي باكو سي عافمات كاغا مركز سنة إلهي وحمدي anyway إن شاء الله خير سو دواده welcome انت channel كجوكتا نمبر كان هدا لسو حريرتين والنمبر كسؤالها كان إذي يقود بنا نمبر هذا كلا هدا سوقشان مركا فضل نوغاده النمبر كان هدا إذي يقود بيو good هدا أذيغا سوقشان اوكي واي وسؤالها good إيه طبيبك اوكي gabar siyaabo badan hormoonka uga qaldamay haddana dhakhtar aan u tagi karin maxay sameyn kartaa waa run dad badan dhakhtar uma tagi karaan sababteen ugu tagi karin meeshay joogaan haddii doona ama gabadha joogto dhakhtar lagama helo haddii la doono ehel ama sawj wax u ogol ee dhakhtar geyn karo ma jiro dadku isku dhaqaale maaha dadka qaarkood adigo waxa dhacdo dhaqanaa jiro Soomaaliyeed qofka intuu socdaba inuu buko uma maleyno mid kale dhaqan kale oo Soomaaliyeed jiro fadlan ogsoonaada kaligiin ma aadan arkinina dad badan arkay maadaama aan idin dhiirigeliyo waa idin dhihi karaa ha waa jira dhaqankaas guryaha Soomaaliyeed waa laga helaa reerkii adiga unbuu ku fadhiyaa maanta gurigaaga waxa laga yaabaa ilaahay baa wax leh cid kale oo maanta u kacayso oo wax u qabanayda ma jirto adigii markii isdhibaaho kaca oo taagnaan la oo caguhu ku balbalayaan dhabarku ku xanuunay madaxa ku xanuunay caloosha ku xanuunay naasuhu ku dararaan hurdaysan neerfisa haddana waa taagan tahay quraacdii baa karide dharkii baa dhaqday ilmihi iskool kala dirtay ama waxbaad qabatay adigu u nooshahay wax un baa qabatay qofkan ilmo u joogin qofka ilmo u joogan ilaahay bay u joogaan anyway waxa soo dhajisata waa dhakhtar aan u baahanahay xaga ku xanuunaysa lagu yiri may dhakhtarkaas kaga baahanaa inaas baabur waxaas kibir waaya laga dhaadhicina lagu yiri howlahaaga hoose
maba la aaminayaba waxbaa qaldan adigana isma dabari kartid oo bidixda lacag kama tuuri kartid oo asigaad ku daba fayle ama waalidaa ku daba fayle dadkina waxay arkaan adigoo iska shaqaysanaa dhar warwaranaa cuno karinaa nabad ku seexday nabad ku soo kacay laakiin juuca hoose ma dareemi karaan dadka qaar ilaa ay nafta ka dhacdo ay dhintaanay marxuum noqdaan lama aaminaa waa bukaan maba la aaminayaba dadka qaar waxaa la yidhaha adoo qufaca maalin kuma arkin markaas way iska aamusaan dadka qaar haddaanaba lagu aaminayn inaad xanuunsan tahay maxaad yeeli taas waa loo yiraahdaa hantiyay macaan waa midaan hooy lagaa dhihin waxaa jirta dad ilaahay wax siiyey shaqaysta gabdho shaqeeyo ballan dhaktar dhiganayo maanta haddaa qof ku tiraadid faamiliga lasee ragga qaar haddaa ku tiraadid dhaktaraan u baahanahay waxaa iska daa yaa lagaa dhaadhicini heblow yaa kaa dhaadhici warkaas yaa kasoo maqashay internetka maa kasoo maqashay war qofkan dood aan cidba fahmi karin buu qabaa adigana waxaa laga yaabaa kaadida inay kaa fakanayso dareenkii inuu kaa yiraahday dhaladhaladu inay kaa yiraatay caloosh inay zaa'id kuu taagan tahay lafuhu inay ku xanuunaan qabow iyo qarqaryo iyo tabardarro inaad dareemaysid eridka inuu ku dhiigayo maskaxda looshe inaa bilowday waxyaabaha yaryarkaa oo dadku ay dhahaan wallahi ma aqaanisaa u xaliyo laakiin marka la nafaqaysto xoogaa ilaahay namootiyo wax ku aaminayaba malaha maxaa la sameynaa marka hormoonaadka qaar markay isbedelaan cillado yaryaray soo tuuraan tayroodka haddii isbedesho cillado yaryaray soo tuurtaa levelada hormoonka haddii isbedelaan cillado yaryaray soo tuuraan soomaalida khayr allah siiya waxay fahansan yihiin nooc waxay wax u fahansan yihiin aan adduunka ka shaqaynin gabaraa dhiigga ka joogsanaa nafaqa darro dashaas hurdalaan xanaaq kurbo walwal maseer calooliyow biilal badan adi wax le gabadhii waxa waaye jir haween waa gacan ku haynaa layidhi way ka tanbadinaa nolosha hormoonka warka waxa ugu sahlan waayo joogsado ilaa waa tarankii xibintii taranka waa waxqabadka taranka ugu horeeya oo joogsana ilaa keliyahaga haddii joogsadaan waa la dhimanaa beerka hadduu joogsado waa la dhimanaa ka alla magan laakiin hormoonka waxa ugu horeeyo oo jirku lee hadda ka bacdi breeka laga qaato yaa marka isku dhimri karo ma lagaa haraayo adigana ma dhihi kartid no haddaan dhintaba waa layga sabri lahaa far ma fiiqay waa nasanaa I need to take time off ma dhihi kartid yaa u jiifane isku dhacaa imaada nolosha isku dhacaasoo ka imaado dhaqaale loo baahan yahay hadal macaan loo baahan yahay duca leysku kaba insha allah loo baahan yahay dhiirigelin loo baahan yahay wallaahi see tahayba waa sad maanta hadday gabar shaqaydo oo mas-uuliyad wado ay xanuunsato ee ninkeeda ku tiraahda xabiibi waa xanuunsanahay uu ku yidhi haya xabiibti ii naso meesha shaqada break ka qaado 2 week isbuuc bil dhib ma leh waxbaa isku riixi doonaa waxaan la heli karin xataa ma heli karnaa soo dhajisanaynaa laakiin ii naso fiicnaan laheedaa sariirta hurdada xataa cuno lagugu keeno ii naso anaa karinaa lagu dhaho afkaa qaadata mid lamida lagula qaatay lagula joogo soo bax banaanka maanta wax ka soo cunaynaa banaanka soo warwareegaynaa cadarro yaryari wax yar lagu soo gado wallaahi adigoo faras camal oo boodaha shaqada ku noqon lahayd habi mar lugaha laguu dadaliigo mar nafaqa yar afka laguu geliyo mar fitamiin yar aad iska liqdid mar cunno fiican laguu kariyo oo lagugu hubsado yaa waxyaabaha yaryar oo dumarka raaxraaxada ubax yar iyo wax yar iyo meel yaroo beero lasoo mamaro iyo habi yaa adiga dhan jecel lagu muujiyo laakiin haddii indhaha lagaaga soo dhadhaca lagu dhaho kahor hooyada aabbaha yaa kuu biilaa maanaad rabtaa inaad hawsha dhan dhakada iga saarto adaa waalatay anima iwaale iga daa haydhibin ilaa afkeena waxsan ka keen haye gabadhi la biilo oo wax walba laga dabero xagee marka ka jijiifa kartaa xagee ka dhigi kartaa dhaktar privatean rabaa xagee ka dhigi kartaa waxaan u baahanahay sabood xagga
dadka qaarkood afkiyaa juuqda gabay bilaash ma loo dhahay kelmadaas afkiyaa juuqda gabay marka allah idii kaalmeeyo allah noo kaalmeeyo dhammaan wax yar oo simple ah rabaa inaan ka hadla insha allah oo haddana free ama almost free ama free u dhow caafimaadkeena u fiican kow duco waaye labo udgoon ilaansi gurigaaga qurxso ya ilaahuma iskoobo ku xaqdid iskoobo yaa yaqaan ama fiiqe ama xaqin gurigaaga qurxso ilaahuma daaha xataa iska yara badashid wax unsa samee simple ilaahu haddaadan dahab haysanin kuul yar ma xiratid wax yar oo ka duwan wixii aad continuous la sameyn jirto samee okay bariisi baasto meelaa u dhaafta haddaa aqoonin qamadi soo gado haruur soo gado isbar cambuula haddaada aqoonin okay cagaar karso koosta karso maraq maroodo lafaha aa ka karsato wax lee samee laakiin haddaad tiraahdo waa taagtaagnaana cuno soomaali iyo wixii aan ku qasbanaha leen dhex taagnaana waa kaa dhammaane okay laama hal saac 2 saac sii horumartid hordada internet ma dhammaanayo laakiin adaa dhammaanaysid ana kaa dhammaanayno marka internetka u sug waxa wax kaa dhammaanaa maaha amuurta khayr allah ka dhigo allah nooga dhigo dhammaan saaxiibtinimo wanaagsan fadlan duceysta dadka qaarkood waa dareemi karaa allah siiyo wax tarana ma haystaan ilaahay baa bixiyo ilaahay aamin ilaahayna talada saar ilmahana u ducee maqan ee weliba soo daahay u ducee wixii la soo daahin anaga ma naqaano ilaahay baa naga og ilmo baariyin oo saalixiin inuu adigana ilaahay ku siiyo intii islaamana ilaahay siiyo ee ubadoona haddaa tahay xaasidka ma aflaxaa la dhahay inooda islaali waxaa ku ducaysatid oo khayr ah ama khayr leh ummadana ugu ducee kaligaa weligaa lama ducaysto islaamka isma yaqaano sax u ducee ayagana inta haysata ay ka xanuunsan yihiin allah u caafiyo inta haysato ay caasi ku yihiin baari allah uga dhigo inta haysato ay weliba ka mariin xumeyn allah u soo hadeeyo adi weligaa duco badnoo qalbigaagana ilaaha daalacanayo ducada aad qalbiga ka ducaysid ilaahay unbaa daalacanayo maskiinaad tahay wehelaa rabtaa nololaa rabtaa farxadaa rabtaa risaq dad iyo dunyo barakaysanaa rabtaa duceey ilaahay markuu ku siiyane ha sheegan awood sida faan oo kale iyo yaa ha sameynin 10 ciyaal haddii iskugu kaa xigaan saa u jeceshaha wiiladii gabdha hadduu ilaahay ku sii weligaa ha ku faanin because waxay noqon doonaan ilaahay baa og wax ilaahay ku siiyey wuxuu noqon doonaan ilaahay baa og because annaga wax ma lihin ilaahay baa wax leh wax walba ilaahay baa leh marka weligaa ducee insha allah dabeecadaha ummadda kala duwana aqbal kolay taada ku tahayna aqbal insha allah wixii calaf lagu leeyahay god lama galay tir Soomaali so must be warkaas waraa ka jiro haye faalada idin qaaska ee daryeelka qusayso fadlan dhageyso and I hope ina u bagi doontid hadaad already isticmaashid reer dabiib badan waxa jira nafaqo isticmaalo qaarkood sanado badan ka hore isticmaali jireen rabiid waaye waxaan joogaa qolka ugxaan kobcinta qolalka kalena waxaan joogaa qolyare wax badan idin soo gali doono ilaahay idin barakeeyo halkaa ka dhooqa nafaqadiin insha allah dhiirigelinta guud dhageysta tagaarna dhageysta nafaqada fahma and then haddaad iska kale iloobi doontid aniga cid walba gaar iyo gooni uguma jawaabi kara daqiiqad walba markaa saa u dhageysatid nafaqada linkiga lacar ila share gareyso haddii kala qaado ku dhufso Amazonka boxka sii gasho waxa la yiraahdaa basketka sii gasho insha allah markaa diyaar tahay gado laakiin hadduu warku kaa kala dhadhumaayo dhiirigelinta guud iskaga naso dhiirigelinta gaarkaana qaado article-kana aqri isha mari okay waxaan daciif iisi kuma korto allah koriyo marka daryeelka kale ka fiican yaa loo baahan yahay say kugu korto insha allah haye waa inoo nafaqada kale insha allah iyo dhiirigelinta hormoonkana waa soo gabadaaye ya fiirmo isku lahaada
isku fiirsada saaxiibtinimo wanaagsan he insha Allah khayr soo dhawaado welcome marka isi soo qabano su'aalahaagu isi saaran ilaahay idankiisa soo daa caafimaad Allah ku daro daryeel walba soo dhawaado welcome salaamu calaykum